Assalaamu calaykum. Gabar ku luntay badda muddo sanad iyo bar ah waxaana dhacay waxaan la filayn inay dhici doonaan. Soo dhawaada saaxiibayaal. Xaaladiinu waa sidee? Ma waxaad dareemaysaa caajis mise waxaad sugaysaa waxyaabo la yaab leh oo aydan sugayn inay dhici doonaan? Hadday saas tahay, waa inaad daawataa muuqaalkan. Qisadan la yaabka leh waxaan idiin soo doornay qisada gabar yar oo ku luntay badda sanad iyo bar kadibna la helay iyada oo nool. Laakiin inta aanan bilaabin, fadlan muuqaalkan like saar, channelkana haddaad ku cusub tahay subscribe dheh, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha u horeeya. Bilowga qisadan ayaa ku bilaabatay mid ka mid ah xeebaha dalxiiska ee Indonesia oo lagu magacaabo Java. Halkaas oo ay waqti dalxiis ku qaadanayeen gabadhan lagu magacaabo Meaning Zunarsi iyo qoyskeeda. Halkaas oo ay ku wada qaadanayeen dalxiis qurux badan, laakiin waxaa dhacay waxaynan filayn. Kadib markii ay go'aansadeen inay galaan biyaha si ay ugu raaxaystaan dalxiiskooda, laakiin xeebta ayaa markaas ahayd mid kacsan waxaana jiray mowjado daran. Qoyskii waxay ku khasbanaadeen inay dib u noqdaan biyahana iskaga baxaan, laakiin si lama filaan ah ayay hal mar gabadhoodii ku qarsoontay mowjadihii. yaa Allah, xagee gashay gabadhii? Ma waxaa cunay libaax badeed talow mise mowjadaha ayaa la tegay? Xaaladda ayaa noqotay mid xun. Waxaa la wacay dhammaan xarumaha baaritaanka si ay u raadiyaan, laakiin qadarta ayaa ka dhigtay arrin aan suurtagelin. Kadib baaritaan dheer oo socday muddo bil ah, waxaa la ogeysiiyey gabadha waalidkeeda in gebi ahaanba la waayay gabadheeda. Laakiin arrinka dad badan isweydiinayay ayaa ah, sidee u luntay gabadha mar haddii libaax badeedna uusan cunin, biyahana aysan liqin? Baarayaasha ayaa markaas ka shakiyey gabadha waalidkeeda inay iyagu gabadhooda biyaha ku tuureen. Waxayna ku sameeyeen baaritaan. Waalidka gabadha wax cadeymo ahna ma aysan ka helin, laakiin arrinta ayaan dhammaan. Weli waxaa la sameeyey baaritaan kale oo 40 beri qaatay. 40 beri kadib ayay baarayaashu ka heleen bannaanka xeebta mayd. Baarayaasha ayaana soo wacay gabadha waalidkeeda una sheegay inay heleen mayd. Maydkan ayaa lahaa astaamihii gabadha, inkastoo uu burbursanaa, taasna ay keentay in lagu wareero. Gabadha aabaheeda ayaa yimid goobta laga helay maydka si uu u xaqiijiyo inay gabadhiisa tahay iyo in kale, laakiin maydka ayaa aad u burbursanaa. Laakiin baaritaan dheer oo lagu sameeyey dhanka DNA-ga maydka waxaa soo baxday inaysan ahayn gabadhoodii. Gabadhan qoyskeeda ayaa aaminsanaa inay gabadhoodu ay nooshahay, ayna u soo laaban doonto maalin maalmaha ka mid ah, taasoo ugu dambeyn u rumowday. Waxaa ka soo wareegatay muddo sanad iyo bar ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu gabadha aabaheeda go'aansaday inuu aado xeebta ay gabadhiisu ku luntay si uu u sameeyo baaritaan xoog leh una raadiyay gabadhiisa. Waxay ku gaartay waqti galab ah. Kadib si lama filaan ah ayuu ku helay gabadhii oo qabto isla dharkii ay ku luntay, laakiin nasiib xumo waxay ahayd mid suuxsan oo kooma ku jirta. Dadkii oo dhan ayay waxay ku noqotay mucjiso, gabar ku luntay sanad iyo bar xeebta. Waxaa loo qaaday Meaning isbitaalka. Kadib markii la helay, dhakhaatiirta ayaa sheegay in gabadhan xaaladeedu aad u liidato, aanan la saadaalin karin inay sideedii hore ku soo laabato. Kadib markay ka soo wareegatay 14 beri, gabadha ayaa wacyigeedii u soo laabtay mar labaad, laakiin waxay noqotay midaan awoodin inay hadasho ama inay xarakaad samayso. Waxaana ka muuqday wejigeeda rafaad iyo dhaawac arrinkaas ku dhacay awgiis. Waxay noqotay midaan awoodin hadalka muddo dheer, waxayna awoodi weysay inay u sheegto askarta wixii iyada ku dhacay.
gabadhan waalidkeeda ayaa waxaa walwal ku hayay gabadhooda oo soo hor fadhisa oo aan awoodin hadal iyo dhaqdhaqaaqbo. waxayna kusii jirtay isbitaalka ilaa intay noqotay mid awooda inay wax cunto, laakiin ma aysan awoodin hadalka. waxay gashay xaalad nafsiyadeed muddo dheer iyadoo aysan cidna ogeyn waxa saxda ah ee ku dhacay.